بسم الله الرحمن الرحيم waxaa magacayga la yiraahdaa Kayd Maxamed Cabdulle waxaa jirta kulli qofku marka uu suugaanta tiri yaqaan dareenkiisa kulba wuxuu ku cabiraa wixii soo kordhay ee mujtamaca ku soo kordhaa marka waxaan maanta la hadlayaa qurba joogta dadka qurba joogta ah ee dalkii taga oo aan dhowr nooc u kala saaray horta nin soo siyaarinaya reerkii iyo eheladii iyo dadkii gartay lagu yaqaan ninka wadankii tagay ee qurbaha intuu ka tagay dhulkii u dhoofay ee baayac mushtari ka furtay ama meherada sameeyay ama maalgashi sameeyay ee dadkii wadanka deganaa u shaqeeyaan kaana waa garanay waxa aan halkan markaa canaan uga soo jeedinaya aniga sida ay la tahay kulli dadku waxa la isku raaceen dadka qurbaha ka tagay ee dalkii ku noqday ee u shaqo doontay ee isagoo haddii qurbaha joogi lahaa wuxuu ku noolaada ka helaya shaqadii ku ciriiriyay ardaydii iskuulada ka soo baxday kuwii jaamacadaha ka soo baxay kuwii isaga la itaalka ahaa ama la aqoonta ahaa oo qudhicii hoos taagan shaqadii ku ciriiriyay ee dhulkii uu noqday in ninkii qurbaha joogay uu yahay ka ugu ladan wadankiina ka ugu ladan dabaddana isagu uu ku ladan yahay waxa ayaan daraa dadkii ardaydii jaamacadaha ka soo baxday iyo dadkii wadanka joogay oo ay shaqadii ka qaadeen qurba joogtii halkii iyagu meelaha kale ay wax ka doonan lahaayeen waxaan arkay hadduu ninku yahay nin shaqadiisa loo baahan yahay oo injineera oo dhakhtara oo shaqada uu yaqaano mujtamacu u baahan yahay inuu dalka ka shaqeeyo waxba anugu kama qabo laakiin nin qalin iyo warqad la ordaya agaasimaan iyo wasiir baan ahay inta wadanka joogto nin waliba intaa wuu qaban karaa markaa waxa haboon waa ardayda jaamacadaha ka soo baxday ee qudhaca taagan ninkii qurbaha ka tagayo aqoon gaar ah oo wadankii lagaaga baahan yahay mooyaane aniga ilmo fiicna in wadankii dadka qurbaha jooga ay shaqo ka qabtaan adigaaba dibadaha haddaad warto wuxuun baad heli doontaa aad ku noolataad iyo carruurtaada waxaa ka daran laba sawir ayaa dhowtaan Somaliland ku arkay sawir qurux badan oo dadkii qurbaha joogay inta Hargeysa gurigii dawladda lagu casumay madaxtooyada nin waliba isagoo naaxay calooshu inta la egtahay oo dumarka xarrogoonayaan lagu casumay intaasoo qof oo intaasoo lacag ku baxday sawirka ku xigay ee naxdinta lahaa ee aan arkay ee igu kalifay inaan gabayga dhameeyo dhulkeenii dadkeenii miyiga joogay oo xaabo noqday oo qoryo noqday oo haraad iyo gaajo marisay oo xoolii dhammaadeen oo gawaari iyo bariisa iyo qamadi loogu geeyay saliid wax laga xishoodo weeye dadka qurbaha ka tagay xitaa raashinka ayna cunaanba ma ahayn dadka adaa wax laga sugaya inaad wax ku tartide inaad wax kaga doontid oo aad maalinkan maanta halkan baan ka imiyo Kanadaan ka imiyo Mareykan baan ka imiyo ajaanib baad wadankaba ku tahay ajaanib nin wadankiina ilaa baasaboorka aad googoso xaq ugu meed ka shaqaysid marka ninkii wadankii ku noqonaya ee dhoofiye baasaboorkiisa googoonayna u shaqo doogo wax alaala shaqo u doono wax alaala wixii aad qabataaba waa ku xalaal laakiin nin Britana soo noqonaya saa dambana halkan ka dhoofaya wadana soo noqonaya oo dadka ku cidhiidhiya shaqada ardayda jaamacadda ka soo baxday ee bila shaqada ah ee badda ku dhacaya ee dooyaha maalulba ku dhimanaya shaqo la'aanta dalkii ka taagan qurba joogtu inay wadanka shaqo ka qabato waa xaraan baan galad waxa soo dhan waxa ugu wacan dawladda 200 wasiir mid xusbi furanaya wax allaala waxa wadanka maamulka gacanta u haya waa wada ajaanib barrita hadii wadanka dhibaato ka dhacdo nin ilaa madaxweynaha nin waliba xaafadiisa iyo gurigiisa iyo jinsiyadii uu haysay wadanku waa ku noqonaya dhibaataduna dadka wadanka yaala ayay haysataa hadaba waxbadalkiya badinine waxaan jecelahay balgabayga aan ku canaaniyo qurba joogta aan idin mariyo allahayow amuuraha jiraan odhanayaa qaare ereyada haddaan daayo oo aamus tala moodo ama aan afkaba dhowro oo uurka xidho caawa oogada jidhkaygaad ka garan iinta aan qarin aflagaada maahee rutaan kuu allimayaaye ilaaq laguma heesiyo waxaan loo afeeftayne eed lama xambaartee waxaan ogahay aan sheego aafada colaadii markay oloshay ee reentay naftu orod bay kugu aamintaa uunku wada qaaday
amxaarada xaggeedii iyo markii idhanka loo yaacay afarqaadka socodkii markay kala ugaadhowday ustareeliyaa loo fakaday aadna loo degay ardaagii ninkii sii fadhiyey ee betala saaray ama aadin meel kale markii uunku kala yaacay arbiciin ka doogsaday dhulkoo omus ka duulayo anfacada la quutiye dawada iibsan kari waayey anfacada la quutiye dawada iibsan kari waayey eedaadka soo maray naftuna ula gubyoonayso ishiisay ku taallaa wakhtiga aramidiisiiye ishiisay ku taallaa wakhtiga aramidiisiiye nin ameerikaan soo noqdaa aayar soo degaye inkaartii ku weydhoofisaa aayar soo galay aboodiga ka soo lale dhul kale aasha soo dhigaye ayniga gaboobiya dadkii wada itaal beelay goortay awood beeshaybay aade quriciiye odayada xaqoodii cunee ubaxa loo saaray odayada xaqoodii cunee ubaxa loo saaray agaasimaha dhoofiyo wasiir amarka loo dhiibay iskuullada kuwaa dhiganayee eeda wada keenay iskuullada kuwii dhiganayee eeda wada keenay agtooday ka muuqdaan haddaa ila arkaysaan agtooday ka muuqdaan haddaa ila arkaysaane ardaygii dadaalee dugsiga loo amaahanayay sow inuu abraaro badiyo ayada gala maaha araggiisa qariyo ka tago eheladii maaha agagaarka liibiya ku cuno ayga dhalay maaha aqoon sare hadduu leeyahoo loo igmaday hawsha ama uu indhaha jeexayo aragga saarayo injineerka kama maarinee aqalla taagayo aafada xanuunkiiyo bukaan iinta garanayo ammaan baan u dirayaa ninkii aayatiin wada ee inta maalgashiga sheegatiyo ganacsi aadkiiba irbad ruuxa keenaa dad badan waa afuriyaaye waa loo adeegaa shaqay wada abuuraani nin afkiisa uun kuula yimi waa allow sahle ilaahay ma keenee hadduu aafo kugu beero ibtilada waxaan garanayiyo abasadii yeedho ugxantiisa meeshuu dhigtiyo agab wuxuu haystay oorida halkuu kaga fakaday ubad qurbaa jooga orod wuxuu ku tegayaa halkuu aaday waa hore amuur kale haddaan kuu fasilo waad ogsoontahaye qurba joogta soo ururtay ee awrta loo qalayo aqalkii dadweynaha halkaa lagu ursheynayo waxa adhiga loo loogayaa idaha naaxnaaxay ama oonta loo karinayaa uur nin dhaansadaye ingiriis haddii uu ka yimi waa ku urutaane waa taa abaaruhu dhaceen oonna loo go-aye may agoonta siiyaan dadkii waa il daran yihiin may agoonta siiyaan dadkii way il daran yihiine inta laysu dhiibaa ku filan aradka gaaleede amaah buu ku noolaan karaa cidi igbaarayne adduunyadu waxay soo durtee urubi soo tuurtay eeriga wixii loogu riday soo ag joogsade laba eefa nimankii qurbaha aadayee galay irmaantii waxaa loo godlaa ruux ajaanibe aagaanta ciirta ah intaad ku ag wareegayso uga baxa albaabada shaqada waa aradan yihiine eegeega meel kale qurbaha waa afgarataane wasalaamu calaykum